maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 11 bishii 2010 anagoo ah dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay Youth for Somalia YFS waxa Ilaahay mahadiisa noo suurta gashay inaan ciidsiino bisha barakeysan ee Ramadaanka awgeeda ciyaalka agoonta ah ee ku sugan xiriyaha qaxootiga ee soo barakacay ee saameeyeen abaaraha iyo dagaalada dadka dalka ka jira waxa Ilaahay mahadiisa noo ah inaan maanta aan gaarno implementation ama fulinta mashruuci project of Eid al-Fitr for orphan children waxaan mahad gaar ah u celinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan qaybta waxbarashada waxaan xusid gooni ah mudan jaamacadda Balaasma oo si weyn ay qayb qaadatay mashruucan iyo dhammaan dadka ganacsatada waxa xusid gooni hadana mudan dadka $1 $2 ku tabarucay ciyaalkan masaakiinta ah inaan ciidsiino oo maanta Ilaahay oo noo guuleysay ugu yaraan 32 cunug inaan maanta ka farxino munaasabada Eid al-Fitr ee nagu soo fool leh awgeed waxa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeynaa inay iyagana ciyaalka badan ee ku harsan kaamamka kale ama kaamkan oo ciyaalka aad u tirada badan ee u baahan in loo laga iibsiyo ciida munaasabada Eid al-Fitr awgeed in loo soo wada istaago lagana qayb qaato dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay Youth for Somalia waxay Ilaahay ka baryaysaa in sanadkiisa kale ummadda Soomaaliyeed uu ku gaarsiiyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo waxaan Ilaahay ka baryaynaa sanadka kale in tiro intaan ka badan aan ciidsiin doono waxaan ciidsiina waxa waa wax dadka Soomaaliyeed laga soo aruuriyay waxaana cadaatay in ummadda Soomaaliyeed waxay aruursan karto ummadeedana ay u gargaari karto waxaan kaloo ammaan gooni siinayaa bahda warbaahinta oo coverage media noo sameeyay oo maanta arintan warbaahinta u gudbiyay aadaan u mahadsantihiin dhamaantiin insha Allah